maxay tahay Quds? Quds waa caasimadda Falastiin, waana magaalo ka mid ah magaalooyinka Carabta ee degto. waxaanu ku yaalla qaybo badan oo muqadasada sida Masjidul Aqsa, kiniisadda Qiyaam. qaybta galbeed ee magaalada Quds waxaa dagaal ku qabsaday Yuhuudda 1948. dagaal dhacay 1967 Yuhuudda waxay kula wareegeen qaybta bari ee magaalada Quds. dhowr jeer ayay isku dayeen Falastiiniintu guud ahaan, gaar ahaan dadka ku nool magaalada Quds si ay uga xoreeyaan Yuhuudda, laakiin ma suurtagelin taas. loolankii qadiyadda Falastiin weli waa mid taagan. dhammaan labada jiha ee magaalada Quds ay ka kooban tahay waa la haystay, laakiin hadda Falastiiniintu waxay muhiimad siiyaan siday u soo ceshan lahaayeen qaybta sharqiga, taas oo ku yaalo Masjidul Aqsa. rajada madaxda Falastiiniinta ay leeyihiin ayaa waxay tahay in dowlad Falastiin la asaaso, taas oo caasimadda looga dhigayo bariga Quds. dhanka kale Yuhuudda waxay ku haysato dhulka Falastiiniinta, waxay rabaan in Israa'iil ay uga dhigaan caasimadda magaalada Quds oo dhan, sida uu saxiixiis ku sheegay Donald Trump inay tahay Quds caasimadda Israa'iil. waxaa ka hor imaaday dhammaan dowladaha caalamka, taas oo u aqoonsaday bariga Quds inay tahay mid Yuhuudda ay ku haystaan xoog. ugu dambeyntii, xaqiiqada jirta waxay tahay in dhammaan magaalada Quds bariga galbeedkeedaba Israa'iil xoog ay ku haysato, taas oo xoreynteeda Falastiiniinta looga baahan yahay.